sida la socotaan Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay sida loo gudo galay bishan Ramadaan waxaa ku badanaya dilalka qorsheysan oo ay geysanayaan ragga hubaysan dawladda marar badan waa ay ka hadashay waxaana ay sheegtay in amniga magaalada uu sugan yahay ciidamaduna ay gacanta ku hayaan haddaba stuudiyaha waxaa igula sugan wariyaha iyaga Cabdirasaaq Socoto oo arrimahaasi si gaar ah ula socday Socoto marka hore kugu soo dhaweynaya barnaamijka RTN ee hargal wanaagsan bal Muqdisho maxaa ka cusub aad ma santahay marka fiirso amniga haddii aan dib ugu laabno shirkii 3 maalmood oo socday ee Baydhabo ka socday wuxuu qusay amniga dalka oo dhan marka fiirso maalmihii iyo bishii Ramadaan intii la soomanaa waxyaabihii dhacay iyo shirka amniga waxamuda waxyaabaha lagu soo qaatay iyo waxa socday in aad u kala fog yihiin kaafi kala dheer yihiin marka loo fiiriyo caqabada amni ee jirta dhammaan wadanka oo dhan maaha Muqdisho kaliya marka fiirso Puntland buuraha galgalo waxa ka soo cusboonaaday dagaalo si gooniya ayaa loogu dilay Jowhar xildhibaano beledweyne sidoo kale Baydhabo marka waxa moodaa inayna ahayn kaliya magaalada Muqdisho haba ugu badnaatay in amnigu aad iyo aad u sii xumaanaya marka loo eego labadii bilood oo la soo dhaafay dabcan Socoto sidaan la socono dawladdu ciidamo fara badan bay u diyaarisay amniga oo nabad sugid iyo police iyo asluub iyo military isugu jira bal ciidamadaasi maxay qabtaan way jiraan bishii Ramadaan bilowgii hore waxa jira ciidamada loogu talagalay xasilinta caasimadda la yiraahdo magaca ugu bixiyaan oo isku dhafo isugu jira ciidamada militariga booliiska iyo amniga ciidamada la isku dhafay waxay markii hore ka howlgali jireen magaalada Muqdisho gudaheeda laakiin qorshaha cusba ee loogu talagalay bisha Ramadaan ayaa la qoondeeyay ciidamadu ay qoondeeyeen militariga in macnaha banaanka loo saaro oo magaalada banaankeeda sidoo kale sida tusaale ahaan meelaha controlada oo afgooye iyo dhinaca balcad iyo maaragtay jaziira oo wada kale ka timaado waxa lagu controlaa halkaas gawaarida soo galaysa ayaa ugu badan oo aad loo controlayo dadka saaran waxay ku soo kordhiyeen ciidamada in gawaaridaasi la controlo la baaro oo xataa waxa lagu soo kordhiyay in xamuulka ay sidaan laga dejiyo oo ganacsatada lagu amray in ay gaari kale oo Muqdisho ka yimid oo asna la soo baaro faaruq lagu wareejiyo kana dib loo celiyo aan soo galin magaalada Muqdisho waxyaabaha lagu soo kordhiyay kamid tahay nasiib wanaag intii Ramadaan ku jiray wax qaraxa ma dhicin laakiin wax aad u soo batay xagga dilalka qorsheysan oo qof loo dilay ilaa in ka badan 70 qof ayaa lagu tilmaamay ayaa lagu sheegay dadka la dilay oo intii bishii Ramadaan ay jirtay dabcan waxaan maleynayaa in maalmo kooban ay tahay 2 isbuuc gudahood taasna waxaad maleysaa in aad iyo aad macnaha u far badan tahay marka la fiiriyo amniga caasimad kaliya in intaas qof ay ku dhintaan in ka yar 15 maalmood runtii waa aad looga naxo laakiin arintaas sidee bay dawladdu ku xalin kartaa maxay ka qaban kartaa weeyaan uma baahna marka la fiiriyo dadka amniga aad u eega ciidamo meel la dhigo controlka oo kaliya caasimadda ka maqan laakiin xagga sirdoonka ayaa mid baahida weyn loo qabo si loo xakameeyo dadka goongoonida u socda dadka ku dhex jira dilka sameynaya dadku waxay isweydiinayaan dabcan mar haddii dawladda ciidamadii isha gudaha ku sugnaa jigboontiida lahaa la qaaday oo dibadda magaalada la geeyay oo qaraxyadii la xakameeyay maxaa dilalkan hubaysan oo habeen walba dhacaya maxaa wax looga qaban lahayn bal xagee wax ka qaldan bay kula tahay Soomaaliya sida la socotid waxaa jira aalado kala duwan oo sababaha amni darrada mar walba waxay la socotaa siyaasadda marka siyaasadda dawladdu isbedesho oo xagga gudaha ay iska bedesho oo dad cusub la magacaabo ama wasiiro cusub la magacaabo mar walba waxay yimaada caqabad xagga amniga oo ka dhaxdhacaysa dadka gudaha waxa maaragtay gudaha ka socda waxa kale jira siyaasad kale oo dibadda saameyn ay ku yeelataa amniga iyo laftirkeeda taas marka waa in dawladda laftirkeeda u foojignaata haddii isbedel siyaasadeed oo wadamo kale dawladda xiriir ay lahayd ay isbedelaan ama ay kala durkaan inay keeni karto in xasil darooni ay abuuri karto waxa loo sababeeyaa dhacdooyinkii siyaasadda khilaafka qaliijka ka dhacay Soomaaliya ay maaragtay xoog culays weyn saartay siyaasadeeda oo labada dhinacii maaragtay dawladdu ay la lahaan lahayd xiriir gooni waxa loo eedeeyaa saameyn inay
ku yeelan karto amniga dalka Soomaaliya sida Dubai iyo sidoo kale Imaaraadka sidoo kale Qatar oo kale oo la aaminsan yahay inay markii horeba fargelin Soomaaliya ay ku lahaayeen xagga jabhadihii jiray iyo nidaamkii markaa jiray inta aanan dawladda rasmiga imaan marka wali saameynta way jirtaa oo waxa la dhihi karaa waxa sababi kara amni darrada qaarkood oo caadi ay ka tahay wadan walba marka siyaasaddu isbedesho in amnigu maaragtay caasimada ku yimaado dib noocaas oo kale ah way dabcan intii hadda aan la soconay oo dilalkan ay dhacayeen dabcan ilaa hadda wax war ah laamaha ammaanka lagama hayo ku saabsan raggii wax dilay in la soo qabtay maxaa sababay in la soo qaban waayo waxaa jira caqabad kale maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu hadlay afhayeenka ciidamada nabad sugidda wuxuu leeyahay dilalka la sheegayo ama Muqdisho ka jira waxa weeyaan kuwa sax ma ahan waa wax la bunbuuniyo buu leeyahay laakiin saxaafadda iyo dadka wax qora uu ka badan yahay sida numberka dilalka la geystay intaana Ramadaan ku bilaabanin ka hor waxa kale oo jira caqabad kale oo ah ciidamada dhexdooda xaakimka ugu sareeya maxkamadda militariga ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidanka militariga maruu hadlayay shalay wuxuu sheegay inay jiraan isku dhac ciidamada dhexdooda ah waliba leeyahay saraakiil ayaa macnaha arinta ku leh maana ahan wax loo dulqaadan karo waxa moodaa marka isku dhac ciidanka laftirkiisa inay xaq siyaasad tahay oo sababi karto amni darrada haddii arintaana xal loo helin oo aan si dhaba loo aadin cidda ka dambaysa isku dhac noocaas oo kale ah inay iyada laftirkeeda ku leedahay amni darrada dilalka goonida ah inkastoo sheegashada dilalka al-shabaab iyo Daesh lagu sheego inay yihiin laakiin arinta laftirkeeda waa caqabad kale in militarigii ama ciidankii nabadda sugi lahaa wax raadin lahaa inay iyagu laftirkooda isku dhacayaan oo saraakiisha wadata ciidamadaas aan maxkamad la soo saarin ama aan la dhahaynin yaa ka dambeeyay isku dhacaas marka laba ciidan ay isku dhacdo ma ahan kaligood inay ku dhimanayaan dad shacab ku dhimanaya marka waa in maxkamad la keenaa yaa ka dambeeyay amarka in xabad la rido in ciidankan iyo ciidankan isku hor yimid oo dawladda u wada shaqeeya in xabad ridaan labada sarkaal oo ciidamada watay waa in talaabo laga qaado waa in maxkamad la soo istaajiyo qofka dhintay Soomaaliga muwaadinka ha ahaado askari Soomaaliyeed ha ahaado qof shacaba waa in maxkamad loo soo istaajiya la daba galaa oo la keena si ay u yaraato arintaas mustaqbalka laakiin haddaan jirin cid daba galayso oo raadinaysa isku dhacaas sarkaalka ciidankaas watay inuu soo istaajiyo sababta xabaddu ku dhacday cidii ka dambeysay way dabcan dadku waxay isweydiinayaan sida la socono Muqdisho waa ogtahay shabaab waxa laga saaray 2011kii hadda wax saameyn ma ku lahan marka magaaladuna ma ahan magaalo furan oo dagaal ah maxaa militariga magaalada ku hayo oo loo kaxayn laayahay oo gobolada loo geyn lahaa dadkaas isweydiinayaan amniga Soomaaliya ma aha wax fudud ma ahan Soomaalida kaligeedna ma awoodi karto dawladda Soomaaliya inay maartay arinta wax ka qabato ilaa ciidanka dib loo dhiso oo Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado oo militarigii la hagaajiyo shirkii Baydhabo waxa ku jira qodobadii qaab ka mid ah isku raaceen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka in ciidanka qalabka Soomaaliya ciidanka qalabka sida Soomaaliya macnaha lagu sameeyo dardargelin la hubeeyo la qalabeeyo la tababaro laakiin waxa meesha ka maqan waxa weeyaan see loo qalabeyn karaa haddii wili cunaqabateyn ay ku saaran tahay caqabada ugu weyn weeyaan sidoo kale waa jiraan malaayiin dollar ku baxda ciidamo shisheeye sida ciidamada Amazon iyo ciidamada kale Mareykanka oo Soomaaliya taageera malaayiin ku baxda haddana socod dheer ma jiro laakiin muhiimadda ugu muhiimsan waxa la aaminsan waxa weeyaan haddaanan ciidanka militariga Soomaaliya aan la qalabeynin cunaqabateynta laga qaadin tababar fiican la siinin dhaqaale fiican aan lagu bixinin inaanay marnaba suurtagelin in la gaaro meelaha loo baahan yahay in laga bixiyo mucaaradka iyo al-shabaab iyo dadka xiriir waa ma santaa socoto aadan kaga mahad celinayna waqtigaada qaaliga kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga Cabdirasaaq Socoto